الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan fariintan u dirayaa hooyo kaste oo waxa weeyaan aadayso u socota meelaha caan baxay ee la yiraahdo qur'aan akhriska dad baa xarumo kireystay boorar bay ku qorteen qur'aan saar bay ku magacaabeen waxa ay dawooyin ku sheegayaan oo dadka cabsiinayaan bay keensadeen foostooyin waaweyn bay biyo ku shubteen ay tahliil ku magacaabayaan hooyooyinkii iyo dumarkii baa fayl u soo galahaya gabar bay soo kaxaynayaan xanuunsan waxay leeyihiin qur'aan saarka ha la geeyo markay keento oo gabadhii la keeno ayaa makarafoonno waaweyn lagu daarayaa markaasaa waxaa la leeyahay adiguna waa sixran tahay ayaduna way sixran tahay qofka wada waa sixran yahay adiga laftigaagaaba jiran kulligiin baaba jiran kulligiin baa la idin quraan saaraya meeshaas waxaa ka socda oo waxa weeyaan fasaadka ah oo aan arkayna oo magaalada muqdisho aada ugu faafay wax caadiya ma aha meeshaas waxa weeyaan quraan akhris ma yaallo cilaaj loo aadayaana ma jiro dad business iyo ganacsi u furtay ummadda xoolahooda raba inay ku qaataan bilbaatil biyo ku rushaynahaya waxay akhrinahayaan maantoo dhan haddaad dhegaysatid wax qur'aan ah ay ku yar yihiin sixir iyo wax la mida ay ku hayaan qur'aankii googoynaya oo ku talaacubaya oo ku ciyaaraya dumarkii ajnabiga ahaa fariyaradooda qabanahaya oo ku dhagahaya oo taabanaya qayladhaan iyo buuq waxa weeyaan iyo sawaxan ka dhacahaya qaar ka mida waxaan arkay oo fara badan markay wax akhrinahayaan dumarkii oo dhan ayaa wada ilmaynaya oo safka ku jiray oo wada ooyahaya oo isruxahaya kulligood waxa weeyaan qaar badan oo fiyow oo yimid markay meeshaa yimaadaan jinkii iyo shayaadiin baa lagu sii daynaya waxay ii sheegeen rag xoogaale qaarkood inay wataan fargashi ay ugu talagaleen jinka inay kusoo xaadiriyaan oo marka waxa weeyaan qof dadkaasi ay yimaadaan fargashigaas jinka uu kusoo xaadiro oo dadkan ay ku sii daynayaan markaasay caamadii waxay moodayaan oo leeyihiin siduu dumarka dhan uga ilmaysiiyey siduu uga oohiyey soo arki maysid waa nin jinku uu ka baqo weeye waa been iyo khuraafaad weeye yaan lacag lagaaga qaadan waqtina ha ku luminin hooyada adigu qur-aanka ku akhri adigu qur-aanka isku akhri gabadhaada adigu qur-aan saar adigu adkaarta akhriso ilaahay ka magan gal meeshaas waxa weeyaan fasaadka yaalla caadi maaha waxay raggaasi in badan ku caanbaxeen haweenka ajaanibta ah jirkooda waxa weeyaan inay taabtaan oo waxa weeyaan ay faryarada ku dhagahayaan qaar ka mida ay qoorta qabanahayaan qaar ka mida ay dharbaaxahayaan qaar ka mida gacmaha ay qabanahayaan sida ay rabaan waxa weeyaan iyo meeshay rabaan iyo xilligay rabaan ay taabanayaan waxaa ka dhaca goobahaas kashful cawra gabadhi intay rafato oo jin lagu sii daayo lagu diro in cawradeeda ay faydanto ninka daawanayo wax ku akhrinaya uu yahay nin ajnabi ka ah waxa noocaasi waxa weeye cilaaj ma aha dhaqaalaha lagu bixinayaana xaaraam weeye saxna ma aha dariiqada iyada in lagu raadiyo caafimaad kuwa noocaa ku shaqaysanayaan oo magaalada ku soo batay oo farihii ka batay waxaan leenahay ilaahay ka baqa dadka beentaa u sheegaysaan ilaahay oga baqa risqi xalaala meel kale ka raadsada dadka muslimiinta ah oo xanuunsan oo idiin imaanahaya ha lugoynina qaar ka mida waxay qorahayaan daawo dhireed ay qorayaan baa jirta oo ay leeyihiin dawadan iyo dawadan isticmaal lacag aada u fara badan buu ka siinahayaa dawadaasi waxaa laga yaabaa qofkaasi khatar noloshiisa khatar gelisa inay ku keento waayo wax la yaqaano oo la tajrubeeyey oo aqoon loo leeyahay ma aha qaar ka midii biyahan ay ku akrinayaan waxaa laga yaabaa biyaha laftigooda waxa lagu akhriyay sixir inuu yahay baa dhici karta oo waxa weeyaan wax lagu kalsoon yahay ma aha dadkii waxaa arkaysaa habeen iyo maalin waa kusii socdaan qaar makarafoonno waaweyn markay ku shidaan oo qofka dhaguhu ay xanuunaan oo uu gacmaha saa yidhaahdo ayay leeyihiin jin buu qabaa waa sixran yahay qur-aankuu diidaya waa lagu gubahayaa markaasaa lagu garaacayaa dhegihiina waxa weeyaan qofkan dhegaha ayaa xanuunay codkaa weyn oo laga dulshida ayuu dhibsada maahane jin iyo balaayo midna ma qabo markaasaa qofkii la garaacaya oo la tumaya war waxba ma xanuunsanin war dhibaata ma qabo markaasaa lee tuma wuxuu diidan yahay qur-aankuu diidan yahay waa jine walaalayaal waxa noocaasoo waddankeena ku faafay oo magaalada ku faafay oo culummadu ay ka digeen in badan gobollada sidoo kale aada looga digo culummo badan ay ka hadleen waxaan ku biirinahayaa codkii culummada mar labaad aan leeyahay qur'aanka idinku isku daweeya
سو فاتحة ما تقانان سو قل هو الله ما تقانان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سورة ذا أتقاند إلهي وكوكو عافنا يا أدورا إسكو آخري قولي قدتك تشوغا كو آخري إلهي بري سبحانه وتعالى إنو عذورك كاقاضو قف أتقاند دينتيسا يا علوم النبديسا الدنيا مالنا أن كد البنا هينو أن رادنا هين يقول قرآن صار يقول آخر يقول أغير وحويان طريقة دي الصحراء أهيد ومداس لكن طريقة هذا فافتي وطريقة فساد وين وكسعده هلا قد دكتونادو وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.